aad baxdeen diyaaradda afkeeda iyaa kaaga horyiin diyaaradda markaasaan uu degtay waxaa iga hor imaaday janaanjarta baa kasii deganaayo ninaa iga hor imaada moobeelku iga qaaday asoo ila hadlin moobeelka maxaa qolkan soo galaa layidhaha qolka markii laga geliyey ciidamaha lagey qolkan qofna uu kasoo bixin qofna adi ilaalis albaabka la ilaalinaya qofna ma soo geli karo qofna ma bixi karo camal marka ma kaligaa mise adiga iyo qabliga kula socday aniga bis dadka kala caadi oo maray aniga bis uu ahaa waay bis marka ciidamo kale imaanaysaa meesha loo joogo cabaar loo joogo ciidamo kale ay imaadeen waxay dhaheen يعني أنا ورت ماشي نحقق لي جوهم أقول لي باسبور كيس سفارة تركيا تالي حتى سمية أنا اسمها كجارنا سمية قروحي يعني اسكو وقلا ودن جوهم إيه المركز بيعدي كل وقت يعني لكن بس مركز ستا حالي ده إيشك فيديو وحالي تصينه هبي يعني لايف اسكول جمهورين أحداث مركز سعودية كي جرنا وحيد هذا مقدشي هرجيسي ده هذا يعني إيشك كلا دورة أنا هذا مقدشي ما أنا دون كوسي ما مجرت هذا مقدشي ما لكم تلي كرم لها بس فيديو تسان واسس وده واسس أدنى مرنا عرف فرماجة وسوق فرماجة ما تايرتا شو كذا تعامسي سيد لو سعودنا حدا باسبور كنت كما شقيه أذي وين أوسيشن جر إهوايا أو وين ما أبى حتى كوين أسحون إلا رقم إلى هلين لما كنا عاد بدناين أسكرته مربو من السوق لا مربو مثل فانت مركز جنب وحدا أذي جبده إلى صوب لحنا حالي إذا جبده أنا روح إلى جار إذا أنا لو صار عمل حبسي التعليم هذا دمني سؤال ممكن يدين كلام كجوده يا يدين كرتا اوكي ina ustaad baan ku salaamayaa wax raba inaan ku weydiiyo gabadha kale oo so iyadu ma ahayn gabadha habargidra oo isku baahan okay maadaama halka taagan tahay oo gabadha habargidra tahay adna gabadha habargidra tahay qoftaas waxay meesha ka saaraysaa in nacayb waxaan ay nimankani wadaan garxadnimada waxaan ay isku xuqinayaan inaan meesha ku jirin waa qodob ma jirto arintaas ana ka jirsati arintaas ma gabar caana ma aad sumeeyo qof yaqaan male miswala qof oo star oo yaqaan way oo caana oo saameyn leh Allah inaad miidi gasho weyn wariyaa tahay ixtiraam meekanaadi ma jecla okay ixtiraam miidal halka markay taagan tahay waxa cad waa kana wasiirka arrimaha gudaha Suudiya inaad ii kaadi deeb miyagi galasta wariya Allah yaqaan mudafura وما يقدر محمد يسكجل aan hadle okay halka markay taaganta miswalay waxa ku cadeynaysa yaaniga inanka iyo meesha aad socotana waxa dhul isaaq adiga iyo gabadha kale kula socotay iyada qulubada gabadh caana Sumaya cid walba taqaana halka waxay ka saaraysaa isku xukuntan iyo waxaan inaan meesha ku jiro waa qodobka labaad wuxuu yahay horta si guud baan ku raali galinaynaa hadaan nahay beesha reer Shaxaaq wuxuun bay waxaan ka mid tahay nidaam xumada iyo maamul xumada meesha ka jirta ما أعرف النظام كمصبح وكوه جاميو وحلا متها إذا كأبتيج الله هالشلي لو دي بي نيكلا ده إسماعيل عمر جيلة مركا وحن قوا إن تايم نظام حمضة مش كتيرتا لكن وح أرجوسيا أما بال لح تحلقنا أما وح كلام معها باهر نبي بنش جيا وإن أنتوا وحوي هذا يسبوها استوقع قلتن ثم يقرب يعني لو دكتور سبوها قلتن هل مرة هلا ثم يقرب ما به فيديو ما يكون هرجيسة يمقدش كل دورم فانتي ما هو بس ثم أنا لازم أدور سني كمان أنا فيديو ولا إيش كذي حقوقها الكاميرا تجيو مش عارفين بعضنا ده كام ضفر هذا اللي يستعني ده يفهمه أنا ما ضفرين قبل الفيديو قالوا هايستو فيديو أنا سومال لامب قبل التريه هرجيسة من هبلاي عن ضغطي هرجيسة وحكم مسؤول مسبح عبدي لكن waxaan diidanahay inaad soo geliso gabadhu meesha u socotay iyo dadka u socotay gabadhu madaxweynuhu ma joogo airportka Soomaa madaxweynuhu airportka mas'uulka ma aha dalka dhan buu maamulaa shaqaale u leeyahay airportka ciiso ikadi cid loo dhaariyay ee kitaab gacanta loo saaray qarankan waa Muusabix Cabdi 5 sano marka ma waxaad leedahay madaxweynuhu ma waxaad leedahay airportka waxa ka dhacaya yaan shaqaale gaar ah lahayn maya iska dhaaf visual adeer iska dig marka aan aqaano arintaas waa baarayna ninkaas meesha ku soo sooreynaa iyo qof yahay iska dig adiga visual waana ka raali gelinayna wixii kaaga soo dhacay arintaas meel fiican xukuumadda Kenya ka raali gelina walaale meel fiican ku dambeynaysa okay waxaan rabaa ciisow ka banaya inaan laba kelmood baan rabaa bahalka afka sakiyo adiga hal su'aal baan ku weydiinayna horta su'aashan ku weydiinayna waxa weeye airportka وايا هذا عيسى waxaa jira horta daahir baan rabaa inaan mid sheego daahir oo gabadhan adeer baad u tahay
cidda ay u socotay ninkay u socotayna waa nin hadda ciidagala sida la sheegayay aduu gabadha waxaan qoon lahaa ku maxaasan oo ha ku shaqaysan inanta adeer baa u tahay inan bay u socotay inay u socotay sharaf buu kusoo dhaweyn lahaa haddii ay ahaan lahayd in waxaan aad ka sheekaysan reer ka dambeeyaan awood buu u yeelan lahaa in adeerku waxaan lahaa war gabadhan ay u socotaa iga daa halkaa waxay kaa tusinaysaa in meeshan awood ka sarraysa iyo nidaamka meesha yaalla uu ka dambeeyo wax khaldan ay tahay nidaamka ah waxa lagu haysta gabadha iyadaba cadaysay oo afkeeda ka cadaysay oo sheegtay oo tidhi videogaasaa laygu haystaa amiir gadaaro waxba kama jiraan waxa ka sheekeynayso arrintaanu ilaa berida way soo biyo dhacaysaa annagu dadka meesha naga jooga aan soo kaxaysano aan isku nimaado agaasimiin madaxtooyadan wacay waxaan idin sheegay gala dib maxaa aamuso dhegeyst anaa hadda waxay gala in yar gala adigu waxaaba taagneed madaxweynaha ka dambeeya waxane sidee baa madaxweyne waawe uga dambeyn karaa mishin yar oo qof aan dagaalkan xajiska ah ee joogto ee siyaasadda ku jira joogta muqdisho ee mahdi uu ka mid yahay ayaa arrintan gabadhan markii garoonka soo baxaysa soo gudbiyey inay u socoto hargeysa sheegay diyaaradda afkeeda lagu sugay waxaasina wax naga dhexeeya ma aha dhaqankeenuna ma ahayn hiila naga dhexeeya nagama dhexeeyo laba kelmadood baan ku dhamaynaya aan iskaba degay iyo dhigaa musa billah alayk maxaa qaldan hadalka wadaaga haddaa isku mar wada hadashaan bal iska maqli maayo bulkaada horta anaa hadalka wuxuu u kaaliyaa mid galnaa hadda hayo hayo anu marka hadal bilaabaya niyo daahir mid galnaa qaldan daaro muudka yaragal qof alla la saqaa way hadaldo waxaan rabaa inaan sheego horta kow daahir hadduu garxajis iska dondoonayo oo daahir garxajis way seelaysaa dhuusana ku toogan maysid hadday garxajis kaaga dhigan tahay cid aad wax ku samayn kartana male sida kale markaad u yara dhigto sida kale markaad u yara dhigto arrinta siyaasadu dhig eg meesha eedu taalleba waxay ahayd koox nabad iyo nolol oo muqdisho joogta ma laga yaabaa inay adeegsadeen dad airportka ka shaqeeya ama madaxba kaca ma laga yaabaa miyayna dhici karin haye haye kolba ku soo galay baan u malaynaya afkeeda ka cadaysay waxay ku tiri haye kolba ku soo galay saki waxaan doonayaa 2 bilyan cabdeeyo aan xoogi hortu niman yahow waxa weeyaan airportka marka la yidhaahdo shaqadan airportka dee dunida waxay leedahay shuruuca gooniya aviationkuna shuruuca gooniya leeyahay inantii halkaa ka degtay waxa weeyaan magaceedii muxuu ahaa miswoor in adeero waxa weeye hortu waxaan waxaa xukumo ah inantiibaa xukumo baa la yidhaahdo ay kaawo waxa weeyaan waa hay-ad daba u qaabilsan socdaadka dunida in adeerow qofku markuu ku socdo dokumenti waxa weeyaan mustaafurisa ama waxa weeye go-ooma horta waxay leedahay shuruuca loo maro airportkana in adeerow horta xero ma aha waxa weeyaan wixii la doono lagu iman karo beerweynta hawiye horta waa beerweyn aan ixtiraam soo hayno ma aha beerweyn waxa weeyaan naga dhaxayso gabadh yar oo waxa weeyaan dhalinyara oo social media isticmaasha ay waxa weeyaan loo jaagifeeyo muuse biixi iyo waxa weeye dowlad dhan loo jaagifeeyo anu ereyga laakiin nin inaga abaa yidhi eeg ma odhanin qolada hawiye ereyga nin inaga abaa yidhi muuse waxaan saxayaa ninkaan adeerka un baan saxayaa niyo beeshan waxa weeyaan reer sheekh saxaabna waxa weeyaan hortu marar badan baa afka lagu soo dhuftay hortu niyo airportka anigu waa tegey waxa weeyaan airportku waa airport weyn reer walba oo ka shaqeeya dad badan baa ka shaqeeya waxaan leeyahay anigu inantaa dokumentiga iminka ay caddaysay sida xogogaalka ay ugu soo gaadhayso in adeero dokumentigaas wuxuu ka qayb qaadanayaa uu jebinayaa waxa weeye regulationka u yaalla aviationka ee qofku markuu ka duulaya madaar ee u duulaya madaar kale hortumeedku waxay iminka inantaasi ay caddaysay ee u soo duushay waa local in adeero somalilandna local looga soo duulo muqdisho maaha
daahir intaan caddeynaya waxa weeyaan waa regulationka u yaala waxa weeye ay kaawo inaadeeno waxa weeyaan somaliland waa ismaamul gaar ah taas way inantu uma soo duuri karto warqad waxa weeya goohooma waa inay ku tagtaa warqadaa goohoomka ah meesha la yidhaaha muqdishona inay ka soo qaadato waxa weeye baasaboorkeeda hargeysana sidaa ku timaado taa marka intaa kaga gudbo waxaan leeyahay horta daahirow inaadeerow horta waxa weeye somaliland reer marka la yidhaahdo ama waxa weeyaan beel xagga ictiraaf ahaan cid u haysaa ma jirto ilaahay unbaa midaan ku fahansiiyo cidina ma odhan ictiraaf iyo arrimo noocaasa cidina kama hadal laakiin ma dhici kartaabay ahayd ujeedada iyo hadafku in kooxdii nabad iyo nolol qayb muqdisho ka miday ay adeegsatay dad ka shaqeeya airportka caqligal mata wax siyaasadeed ma dhici kartaa niyo wataan mid baan ii sheegayaa airportka inaadeerow airportka ma xukumo waxa weeya qof bini aadan ma xukumo qof keliya ma xukumo shaksi ma xukumo airportka inaadeerow waa wasaaradaasina waxa weeyaan hoos tagtaa waxa weeyaan waa madaxtooyadu inaadeerow ma soo xukumi karto wasaaradaas hadafka ay ku shaqaynayso islamarkaa airportka laakiin airportka wuxuu xukumi karaa ama decision uu qaadan karaa maareeyaha markaa jooga xaaladda la soo gudubta ee waxa weeyaan qof ku soconaya waxa weeyaan dugmadka khaldan in waxa weeye airportka laga qabto lana celiyo si sharafta weliba inantu waxay sheegtay in laba qof ay ku wada siteen waraaqda go'aamka labadoodii midna la sii daayay midna la celiyay taana ku darsan taana waa kaa jaaga saaraya baasaboorka soomaaliga horta qof wal oo soomaaliya waa sitaa baasaboorka laakiin waxa weeyaan qofku dhalasho ahaan waxa weeyaan haddaan burco ku dhashay anigu oo baasaboorka aan sito micnaheedu waxa weeye lagu celin maayo meesha la yaa muqdisho laakiin baasaboorka labadoodu waa muqdisho ku dhasheen labadooduba soo hubiya ciiso taama oran karna inagu mana caddayn karno inay muqdisho ku dhalaan waa sheegto laakiin inantaa uma maqan muqdisho inanta kale sumaya ku dhalatay laakiin waxaan leeyahay mar walba dukumentiga qofku ku safrayaa inaadeero waynu noqdaa dukumenti saxa oo waxa weeyaan u diiwaan gashan markaa meesha aad tegaysid hawiye in meesha laga celiyo lagu bahdilo in la dhex maray ma fahamtay arrintaanuna waxay si gaara saameyn ugu yeelanaysa dadka qabiilkan xajiska u dhashan layihahdo iyay saameyn gaara ku yeelanaysaa xiriirkooda siyaasadeed ee kala dhexeey dowladda soomaaliya ku yeelanaysaa xiriirka wanaagsan ee soo jirinka ee hawiye kala dhexeeyey waayahana waa laga shaqaynaya dad badan baa loo adeegsanaya social media marka halkaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka lagu kala reexanayo oo caawa xasheekh maxamuud oo maqlo ciidagalihii garoonka joogay ninkaas agaasimahaas sirdoon ay dowladdu leedahay ayaa amar ku bixiyay gabadha inaa soo waxeeyo oo mahdi guuleed baa arrintaa kulug lahaa xasan sheekh calaa dul uu iska fogeynayaa cid kastoo qabiilkaas ka socotay kar xajiska ma faham marka baashaan ugu jiib badan yeelanaysaa laakiin ninka hore walkii hadalka u sheegay ayaa la qabaa annagu hadday isaga dowlad boqolayaan annagu dhib kuma qabno inaad dowlad noqotaan ay rajeynayna laakiin 3 sano soo socoto waxaan rabnaa inay hawiye dhulkooda ay ku ekaadaan dhul saarna aysan tegin odayaasheen dhaqankadeena dhalinyarada ee caanka ah waxaan kale u sheegayaa visual saameyn bay leedahay dhinaca social media dhalinyarada hawiye iyo kuwa isaaq iyo kuwa soomaali saameyn ku dhexleeda qof khatar oo aad loogu xiran yahayo minaya xoolaha waata way buur figara arrintaasi qof kastoo ila taaba inkastoo aanay jeclayn inay qofan waxba geysan saamaysa haddaba way saameyn doontaa qofan dembi geysan